waxaan doonaynaa inaan wax ka ogaano taariikhda yeyda. Yeyda waxay leedahay awood u gaar ah. Yeydan hadda waa ay ooyeysaa. waxaa jira laba nooc oo ka mid ah yeyda. midda koowaad waa yeyda Ethiopia, Canis simensis. kaliya ilaa 500 ayaa hadda ku haray duurka Ethiopia. waxaa jira yey ciro leh, Canis lupus. 250,000 waxaa la yidhi gray wolves weeyaan, waa yey cawlan iyo 40 species. yey si aad ah u waaweyn. waxaa jira yey yaryar kuwaas oo iyaguna ku nool Middle East. yeyda yar dhererkoodu waxa uu noqonayaa 26 inches iyo 45 pound 45. halka yeyda waaweyn ee ku nool qaaradaha Amerika uu dhererkoodu noqonayo 36 inch 36 inches oo dherer ah iyo 175 pound, halkaas oo ay culays ahaan iska leeyihiin bini'aadanka. hermooyinka yeyda waxaa xukuma alfa lab iyo alfa dhadig. yeyda waxay weerar ku qaadaa si kooxaysan ayagoo mida ay weerar qaadayaan. hadda waxay ku jiraan damaashaad. waa la ciyaarayaa. hooyaduna waxay ciyaarsiinaysaa ilmaheeda. yey kasta waxa ay leedahay qaylo u gaar ah. sidaas darteed marmarka qaar waxay u qayliyaan sida bini'aadanka. waxa macquul ah hadduu hal yey uu qayliyo ama uu ooyo, inay kuwa kalena ay maqlaan ayagana ay sidoo kale ay ooyaan ama ay qayliyaan. halkaas ay u tahay baaq ama ay isku fahmayaan qaylada. yeydu waxay ku sigatay inuu ku bakhtido qaaradaha United Stateska. waagii hore dadka safraya ayaa waxa ay samayn jireen, waxa ay ugaarsan jireen xayawaanka, halkaasay u badnayd yeyda iyo baasha loo yaqaano baciidka. yeyda iyadu waxa ay ku nooshahay hilibka qayrinka, halkaas ay ugaarsato xayawaanada kale. yeyda ayadu way isbedeshaa marka uu xilligu u galo xilliga qaboobaha ama barafka, waxayna yeelataa shaash aad u badan iyo dufcad.